kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo Somali Coverage TV waa 13 bisha Agoosto sanadka 2026 aroornimo hore oo Khamiis ay xaggayga ka tahay halka ay Washington iyo sidoo kale Mareykanka meelo badan oo kamid ahna ay ku sii dhowdahay fiidnimo galab wanaagsan ayaan idinka leeyahay hawada intiina ku sugan waqooyiga Amerika haddaba tabintan si gaar ah waxaynu ugu eegi doonaa doorashada taariikhiga ah ee ka dhacaysa gudaha dalka Mareykanka xilligan xasaasiga ah xisbiga dimuqraadiga laftirkiisa ayaa laba u kala jabay oo dhinacyo socialistayaal ah oo uu ku jiro ama uu hogaaminayo senatorka Bernie Sanders iyo sidoo kaleeto mayorka magaalada New York iyo senataro kaleeto iyo xubno kamid ah Congress-ka oo dhinaca kaleeto oo iyagu ah isla xisbiga dimuqraadiga intii ay horay u ahaayeen waxa haddaba dhinaca kaleeto jirto waqtigan inay ku soo aadayso xilli xasaasi ah haddaba xubnaha ka soo dhaxbaxay dhinaca dimuqraadiga gobolka Minnesota ee Soomaalida ah ee ku guuleystay doorashadan ayaa waxa kamid ah Cabdi Deysane oo isagu u tartamaya kursiga 14aad ee bartamaha gobolka Minnesota yaala waxa kursigan horay ugu tartamay Deysane mar waqti ka sii horeysay ahayd hase yeeshee haatan ayaa guushii isreebreebkii xalay xisbiga dhexdiisa uu ku soo baxay waxaana jiri doontaa in doorashada weyn ee November dhacaysa ay iswajihi doonaan xubinta ka socota dhinaca xisbiga jamhuuriga haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa ay doorashadan uga dhigan tahay Cabdi Deysane iyo asaga iyo ragga kale ee Soomaalida ah iyo gabdhaha Ilhaan ay ku jirto ayaan khadka kula xiriiray ugu horreyntii waan ku hambalyeeynaya soo dhawow Cabdi bal waxaad iiga warantaa waxa ay kaaga dhignay doorashadan si gaar ah walaal aad baa u mahadsan tahay doorashadan runtii guul taariikhi ayay ahayd badanaa kursigan primary muusan aadi jirin ama isreebreebka muusan geli jirin dad badan oo danaynayo u tartami jiray ma jirin xisbiga Republicanka ayaa kursigan haystay muddo ilaa 30 sano ah wixii Republican oo Democrat oo tartamana waa la isku dayin jiray kursiga marka aniga waxaad moodaa marka horena xisbiga in la igula loolamay endorsementigiisa laakiin xisbiga aniga calaamad saaray 93 cod aan helnay kadibna haddana ay dhacday inuu qof kale shakhsi kale isa soo sharaxo si uu primary inoola aado marka primarygii way xalay guushii ugu horeysay way ahayd waxaan u baahannahay haddana inaan badino November aan ku reyno si aan kursiga anaga ugu fadhiisano aniga waxaan kasoo jeedaa xisbiga of course dimuqraadiga hadda Minnesota waxa loo yaqaanaa DFL qofka ila tartami doonana xisbiga Republicanka oo aad ugu xoogan areadan ayuu ka soo socdaa waa tahay kursigan waa kursi markii hore aad horay u weysay haatan si aad heshay inaad waqtigan heshay maxay kaaga dhigan tahay adiga si gaar ah Soomaalidana maxay uga dhigan tahay runtii horta kursigan November aan gaari doonaa insha Allah inaan helno hadda isreebreebkii ayaan kusoo gudbay inaan isreebreebka kusoo gudbo laftigeeda hasa ahaatee taasaan ula jeedaa macnaha taariikhiyan in isreebreebka xataa aad ku soo baxday sax way taasaa taariikhi ah sababtoo ah kursigan sideedaba markii ugu horeysay qof madow u tartamo markaan aniga u tartamay ahayd doorashadii hore la soo dhaafay inaan endorsementii ku soo baxa waxay ahayd arrin kale oo taariikhi ah qofka ugu horeeyay endorsementii oo madow ah oo kursigan helo ayaa noqday inaan hadda weliba si cod caadi ah qof iyo cod ah aan ku soo baxno oo aan primary uga soo gudubno taariikh gooni ah ay community-gan u qoraysaa waxay tusaysaa in bulshada aan la noolnahay halkaan ay isbedelayso ay diyaar u tahay hoggaan cusub hoggaan fresh ah hoggaan yar da'yar waxaasoo dhan inay diyaar u tahay ay tusaysaa Soomaalida laftigeeda waxay tusaysaa in xubin muuqato ay ku sii yeelanayso magaalada St. Cloud iyo nawaaxigeeda magaaladan magaalo aad Soomaalida ugu cusub tahay weeye markii la fiiriyo loo eego magaalooyinka mataanaha oo kale annaga magaalo aan ku cusubnahay weeye markii saa loo fiiriyo waxaad moodaa hadda inay saameynteena magaalada ay badanayso saameynteena guud ahaan gobolka awal horeba way fiicnay maxaa kugu dhaliyay inaad kursigan u cararto markii hore haddana hadda markii aad weysay kadibna aad dib ugu cararto walaal su'aal wanaagsan weeye horta aniga xisbiga active baan ka ahaa dadka xisbiga aad uga dhex muuqday weliba localka magaaladeedii nawaaxigeeda dadka aad uga qayb qaadanaya ayaan ahaa xisbiga maadaama aan aad ugu dhex jiray dad fara badan oo xisbigiisa soo sharixi jiray oo tartami jiray ayaa jiro oo aan taageeri jirnay
waxaa ii muuqatay dadkaas in ay u suuro gelaynin inta badan inaysan reenaynin kursiga sababtoo ah maysan keenaynin dad cusub codaynta maysan keenaynin dadka cusub waxaa ka mid a marka annagoo kala soomaalida dad caadi isaga codeeya ma aha inay sababa ay ku codeeyaan ay dhacda ma ogi marka aniga marka maadaama aan active ku ahaa waxay igu dhiirigelisay marka hore dhowr qof oo xisbiga la shaqeeyo dhowr qof igu dheheen kursiga inaa u tartanta waayo horeyna aniga dee siyaasadda few times baan u tartamay state city council magaalada marka hore u tartamay 2016kii taa laftigeedana siyaasadda waxay soo gelisay dhibaatooyinka lagu hayo oo weliba sii kordhayo dadka soo galootiga waa waagii Trump markii ugu horreysay la dooranayay islamophobia batay ama nacaybka dadka muslimiinta ah nacaybka dadka soo galootiga ah batay sidaas darteed marka waxaan istusnay annaga magaaladeena in aan xubin muuqata ku yeelano kursiga u tartanno maadaama aan ka mid nahay dadka magaalada ugu firfircoon wax soo geliyo xisbigana ka dhex muuqdo marka saasaa u tartamay tan marka waxay iska noqotay marka inay dadka ii arkaan qofkii ugu munaasabsanaa kursigan isku keeni lahaa labada dhinacba dadka soo galootiga ah dadka immigrantiga ah iyo soomaalida iyo bayskii demokraatka ee magaalada ku yaraa markeeda hore rajada aad ka qabto in aad si rasmi ah bisha November doorashada adiga idin dhex mari doonta loolanka xubinta xisbiga Republicaanka ka socda waa mid intee leeg maadaama aad ii sheegtay in deegaanka uu yahay deegaan ay ku xoogan yihiin codbixiyaasha iyo sidoo kale xisbiga jamhuuriga siyaasiyiintoodaba runtii rajada aad ay u wanaagsan tahay anoo u salaynayo dhowr wax midda ugu muhiimsan waxaa weeye kursigan hadda qofka ku fadhiyo lama tartami hayo aniga qofka kursiga hadda ku fadhiyo waxay doonanaysaa inay senator noqoto marka kursiga markuu u banaanaaday oo hadda dadka aniga qofkii la tartamaya waa qof ku cusub kursigan ma aha qof siyaasadda ku cusub oo waa qof hadda deegaanka hooso xil ka hayo muddo kooban oo hadda ka haya xil dhowr meeloo kalena uu tartamay sidii duqa magaalada iyo meelahaas uu ku guuleysan waayey marka waxaa noo suuro gelayso midda u horeyso in aan horta marka horeyso la loolanno qof aanan hadda kursiga la fadhinin oo advantageka qofka kursiga ku fadhiya uu leeyahay aanan haysan waxaa kaloo inoo suuro geli karto markaan kursigan u tartamayna hadda xilligan xilli ay tahay xilli runtii aad u adag oolan la nacay inta badan xisbiga republicanka la nacay maadaama madaxweynaha ayaga haystaan labada aqal haystaan garsoorka haystaan welina ballanqaadyadii dadka ay u sameeyeen aanan weli laga maal dhalinin waxaa dhacayso hadda inay dadka maciishadii kor usii kacayso magaalada aan deganahay 50% aniga xaafadda hadda aan rabo inaan laga doorto 50% waa dad kiraystayaal ah kiradii qaali weeye waa dad da'yar u badan oo caruur leh child care-kii iyo meelihii xanaanada caruurta waa qaali shaqooyinka way sii yaraanayaan waxaad moodaa marka meel walba qofka xataa adeegii ay suuqa kasoo gadanayeen ee maalmeedka ahaa in ay yara cuslaanayso marka dadkii marka waxay rabaan isbeddel gooni ah waxay rabaan qofkii ka hadlaya waxaas oo runtii tusayana maxaa laga qaban karaa si loo nolosha dadka loogu fududeeyo dowladda sideedaba waxaa loogu talagalay in ay dadka ku adkayso nolosha ma inay u fududeyso loogu talagalay marka waxaad moodaa hadda in kacdoon uu socdo oo meelo badanna sidaan ka aragnay Michigan iyo New York iyo dadka kusoo baxayay ay ku ololeynayeen sideen maciishada hoos loogu dhigi karaa dadka jeebkooda lacag loogu soo celin karaa ayadoo dadka lacagaha leh ama hay'adaha waaweyn laga qaadaya canshuurta wixii loo baahnaa in laga qaado marka waxaan isleeyahay annagoo isticmaalayno ama ka faa'iidaysanayno arrimahaas oo dhan xilliga ugu wanaagsanayd ee kursigaan kusoo bixi karno inay hadda tahay waa tahay waxaa jira siyaasiyiin waaweyn iyo xildhibaano ku jira labada aqal waqtigan meeyaro
xisbiga dimuqraadiga laba ayuu u qaybsamay oo socialistaha hadda horboodaya xubno fara badanna way kasoo baxeen goboladan dhowrka ah ee New Jersey, New York, hadday noqoto Michigan, hadda Minnesota. marka ma kuwaasaad u janjeertaa maadaama aad ka dhawaajisay miciishada iyo dhibaatooyinka dadka haysta ayaan wax ka qabanaynaa haatan? aniga ma ihi socialistaan ahay, weli ma dhihin, mana ihi. waxaan ahay dadka aaminsan capitalistiga ama ganacsiga iyo waxaas aaminsan ayaan ahay sida guud. laakiin maciishada waxyaalahan dadkaas iskala jirnaa jirto, sidii for example inay dadka ay helaan caafimaad u baahan yihiin ee ku filan inay helaan. waxaanna ma ahan ideology keliya ma aha wax hadda la isku haysto. waxaa weeye dadka danyarta ayaa u roon ayaa hadda la isku haystaa. dagaalaha banaanada ka dhacayo kale aniga waa kasoo horjeedaa. Israa'iil iyo Falastiin wax ka dhacayo oo hadda aad dadka ku kala qaybsan yihiin dimuqraadiga dhexdiisa, kuwaas aan la socdaa. arrimahaasoo dhan waan ka midaysannahay. waxaan kaloo ka midaysannahay in isbeddel u baahan tahay xisbiga sidii hore ku shaqayn jiray in wax laga bedelay u baahan tahay. waan taageeray kuwa badan oo dhinacaas u janjeena, waan taageeray shakhsiyan, waa u ololeeyey. fursadu maanan helin aan u codeeyo sababtoo ah magaaladeyda wax oo xisbigaas dhinacaas jira weli ma jiro. laakiin in fact actually taasan dib uga noqdo, xalay waxaan soo dooranay Peggy Flanagan oo senator u tartamaysay oo runtii u janjeenta dhinacaas. ayada laftigeeda maysan dhihin socialistaan ahay, hase ahaatee dadka u ololeynayo Medicare for all ay ku jirtaa, dadka u ololeynayo maciishada in wax laga bedelay ku jirtaa, arrimaha Falastiin dadka aad ugu ololeynaya ku jirtaa. marka kuwaasoo dhan waan ka midaysannahay. runtii isbeddel dadka inay u baahan yihiinna waa wax aad u cado, waxay ku tusaysaa sidii dadka ay u codaynahayaan dadka noocaas oo kale ah. qof walbo oo for example taageersanayn hadda ama taageersanayn in wax laga qabto arrinta Gaza looma codaynayo. waxaan aragnay Cabdul, waxaan aragnay Mamdani, xalay waxaan aragnay Peggy Flanagan magaalada stateka Minnesota. marka isbeddelka wuu socdaa, isbeddelkana dhinacaas uu ka imaanaya. aniga marka waxay ila tahay inaysan too much ahayn socialist iyo moderate, inaysan ahayn progressivism wax la dhahaa socdo. marka hadda dadka progressiveka oo runtii u ololeynaya inay maciishada wax laga bedelo ama sida hadda xisbiga uu shaqeeyo wax ka bedelanto, dadkaas aniga la jira. dhinac markaad fiiriso gobolka Minnesota oo Soomaalida Mareykanku halkay ugu badantahay degan tahay mushkilada fara badan baa Soomaalida haysato. wixii ugu dambeeyay waxaan xasuusanaa dhibaatooyinkii gobolkaasi si gaar ah Soomaalida u soo gaaray, bartilmaameedsigii ay noqdeen, ayse u bartilmaameysatay madaxweynaha dalkan Mareykanka oo ilaa iyo haatan hadal haya si qaab daran oo weliba loo arko inay tahay qaab wax dhimaal ah. dadyoga soo galootiga ayaa la nacay. marka haddana dhinac markii laga eego Soomaalida ganacsigooda dhibaatada xooggan uu soo gaaray, waxaa weli ka muuqanaya community ahaan ama maaragtay in Soomaalida markii la fiiriyo jaaliyad ahaan ay u burbursan yihiin, aysan isku xirnayn. dadkii la dooranayay ama dowladda hoose ama ilaa iyo heer Congress ilaa iyo xataa heer degmooyin iyo gobollo galayana way sii badanayaan. doorashadiinu maxay taraysaa haddaysan waxba ka bedeli karin xaaladda dadka Soomaalida haysata gaar ahaan gobolka Minnesota? runtii waa su'aal aad u wanaagsan. horta dadka aan dooranay Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay aniga inay wax badan ka bedeleen sumcadda, sharafta iyo nolosha dadka Soomaalida intaba iyo dadka madow ah. runtii dad aad Soomaalida ugu ololeeyo, Soomaalida u hadlo dal iyo dibadba ayaan dooranay hadda intii sida guud. laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu weyn noo keenayo sida hadda sheegtay xisbiga Republicanka oo Trump hogaaminayo oo isku dayay in ay Soomaalida ka dhigtaan wax lagu maxaa la dhahaa punching bag ay ka dhigtaan. marka si loogu reeyo marka doorashooyinka runtii difaaca ugu horeeyo oo Soomaalida loo sameynayeen waxay ka imaanaysaa dadka aynu dooranaa annaga. Soomaali kaliya maaha, dadka xataa oo ajaanibta oo aad aan iskugu dhownahay
magaalada oo annaga codadka fiican naga helo dadna garab istaagay ayay ahaayeen businessleyda saamaynta ayadana waxaa ku dhacday laftigeeda iska siyaasadaysan ayaa ku dhacday now aniga laakiin waxyaalaha aan aaminsanahay waxaa jiro waxaan aaminsanahay sidaasoy tahay haddana in uu stateka ama gobolka Minnesota ka gaabiyey inuu ilaaliyo xuquuqda dadka markay ICE magaalada joogtay stateka joogtay waxaa jirtay dad muwaadiniin ah oo siyaabo xun loola dhaqmay waxaa jirtay annaga inaan baasaboorradeena jeebka ku wadanay oo haddaan baasaboorka ka tagno nala istaajinayay oo nala dhahayay keen waxaadi taasna runtii ma ahayn in madaxa nooga qoran tahay inaan sharci haysane waxay ahayd in nala bartilmaamaysanayay oo loo arkayay qof hadduuba Soomaali yahay Amerikaan ma noqon karo marka waxaan u baahannahay dadka la doorto aniga haddii aan kursiga ku guuleysto waxyaalaha aan rabo in runtii aan difaacno dadka xuquuqda ay leeyihiin oo aysan noqonin oo federaalka arrintan iska leh say rabaan waxa yeelaan dhibaatooyinkaas waxaan u baahannahay inuu stateka xal ka gaaro oo uu difaaco dadka civil rightskooda ama xuquuqdooda aadamiga inuu difaaco xuquuqdooda muwaadinnimo inuu difaaco intaasna waxaa loo baahan yahay in laga hortago dhibaatooyinka uu federaalka keenaya xitaa waxyaalaha ayaga ay u leeyihiin awoodda oo federaalka awoodda u leeyahay sida immigration enforcement iyo waxaas in xisbiga in gobolka laftigiisa uu dhaho qaybtan waa okay waan ogolnahay laakiin dadka waxaad ku samaynaysaan waa qalad ma islihi sida loogu talagalay ay u dhacday sanadkan bilowgiisa markay ICE timid laakiin waxaa sharaf iyo runtii iyo in la sheego mudan shacabka reer Minnesota inay wada istaageen ay isku duubnaadeen ay difaaceen dadka soo galootiga sidaa ogtahay dad muwaadiniin oo Minnesotan ah ayaa ku dhintay ayagoo dadka hortaagan oo ICE ka difaacay marka siyaasiyiinta wax badan ay qabteen laakiin wax badanna way u dhiman tahay inay qabtaan weli waxaa la sheegayaa in dhibaatooyinkii ICE dadkii la xirxirayay ay socoto ayada oo weliba ay si qarsoodi ah gobolka ku joogaan meelo badan oo kamid ah Ilhaan Cumar ayaa ka dhawaajinaysa 2 bari ka hor in dhibaatadaasi ay 2 jibaar ka badan tahay hadda warbaahintu si toos ah ayay u qortaa marka maxaad ka bedelaysaa hadiiba aad timaadid aqalka baarlamaanka ee gobolkaasi Minnesota November wixii ka dambeeya maxay tahay waxaad u tiri kartid Soomaalida dhiban ee gobolka Soomaali Mareykanka runtii hadda waxyaalaha aad u socdo horta enforcementigii xooga badnayd ay dhowr kun oo agent ICE ay gobolka joogtay horta hadda ma jirto way joogtaa weli ICE laakiin tiradii iyo shaqadii socotay ma socoto hadda waxaa loo baahan yahay marka in xabsiyaday dad ku jiraan weli xabsiyadii laftigooda lama ogo sidii wax loo samaynayo waxaa jirtay muddo badan in loo ogolaan waayay xabsiyada dadka madaxda ah sidii Ilhaan dhowr jeer laga celiyay inay xabsiga gasho hadda way fududaatay sidii hore way dhaantaa laakiin madaxdii hore maaragtay human hawshan waday sidii gabadhii kursiga laga diray iyo dad lamid ah inay u diideen in la galaba xabsiyadaas Minnesota dhexdeeda baarlamaanka Minnesota wuxuu awood u leeyahay in xabsiyada uu manage gareeyo u diido for example hadda hadii xabsi cusub in lagu dhisal rabo Minnesota waxa go'aan ka gaaro gobolka baarlamaanka Minnesota go'aan ka gaaro marka aniga waxyaalaha aan mar walba ka soo horjeedayo waxay noqonaysaa private prisons waa ka soo horjeedaa sida macnaha dadka hadda oo la dhaqmayaan sida loo galay waa loo baahan yahay prisonno maxaabiis waa loo baahan yahay dadka xun meel la geliyaa loo baahan yahay ama waxa dambiga galay hase ahaatee immigrationka kamid ma ahan criminal ma aha dadka waddanka soo galayo sida loola dhaqmayo ama xabsiyada loogu hayo si fiican ma ahan insha Allah waxyaalaha aan isleeyahay si fiican u ogow si fiican ugu duurgal xabsiyadaas laftigooda intaan anaga awoodeena inaan ogaano waxay qabtaan say ula dhaqmaan dadka waxa la ii sheegay dad Soomaaliyeed oo runtii xanuunsan xitaa oo xabsiyada ku jiro oo loo diiday inay raadsadaan caafimaad oo meesha lagu hayo oo aad runtii aad looga soo deeriyo aniga dad waxaan ahaa aad
uga dhex socday arrimahan intay socotay koolal badan aan dad u gudbinay madaxda hadda la doortay laftooda aan u gudbinay areadeennan xataa dad baa ku xiran marka insha allahu markaan awoodda leenahay waxaa noo suuro gelayso in aan la xiriiri karno madaxda maxaabuustaas aan ogaan karno tirada maxaabiista intay la eg yihiin iyo waxa ay yihiin meelaha laga qabtay iyo aniga shakhsiyan hadda ma ogi tiradooda laakiin waxaan ogahay inay dad badan yihiin waxaan la shaqeeyey hay-ado samafal hay-ado xuquuqda bini'aadanka u doodo ama hay-ado immigration ah ayaan la shaqeeyey kuwo badan baa soo raadiyey soo reach out gareeyey maadaama aan dadkii ice hor taagnaa aan ku jirnay dad badanna waan ku xirxirnay kuwo culimo raadinaya xitaa dadka marka la xiro waxaa laga yaabaa qofka ama xabsiga muddo ku jiro waxaa laga yaabaa inuu codsado qof ama wadaad ama imaama ama la dhaho qof diintaada ma la hadlaysaa dad badan oo culimo ku xirnaa jirto aan culimada ku connect garaynay dad badan oo aan looyaro bilaa lacag aan ku xirnay baa jirto laakiin tiro guud oo hadda aan ognahay ma jirto inta badanna dadkii dad badan oo lasoo sii daayana waa jirtay oo ay ku guulaysteen looyaradii inay xaqooda iyo xuquuqdooda dib u siiyaan dad dabcan la diray oo la wadayna way jiraan intooda badan inkastoo ay ahayd dad inta la dafo waqti due process loo samaynaynin inta la wado lagu tuurayo taxes oo kale arrimahaas oo kale arrimadee oo dastuuri ah qofka xuquuqdiisa dastuuriga ka hor imaanaysa inay qofka aanan la siinin janis uu lawyer ku wacdo waxba samaynin intii la kaxeeyo taxes lagu tuurayo xabsi taxes la geynayo markii la soo sii daayana waxaan aragnay haddana inay federaalka ay soo celin waayaan qofkii ay keeni waayaan Minnesota ay dhahaan ayagoo asagoon qofkii ID wadanin ID ka qaadeen lacag wadanin waxba wadanin ay ku dhahaan telephone wadanin ay dhahaan waa lagu sii daayay laakiin uu taxes joogo sidoo marka Minnesota ku imaanaya lawyer badan oo ka qayb qaatay ama hay'ado waxa jirta lacag ku bixiyay aan kala shaqeynay in ay dadka soo celiyaan marka waxyaalo badan oo sameeyeen waa jirtaa laakiin wuxuu ahaa waxaan hawl runtii aad looga shaqeeyay Soomaalida in lagu dhawaateeyo loogu talagalay marka shaqadeeda way weynayd waxaan isleeyahay wax badan oo la qaban karin waa jirtaa wax badan oo hadda la qaban karana haddii Ilaahay yiraahdo way jirtaa oo kamid tahay sida hadda aan sheegay xabsiyada iyo waxaas aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdi Deysane waana ku rajeynayaa guul doorashada kama dambaysta ah walaal aad baan u mahadsantahay adiga iyo daawadayaasha waa in salaamayaa mahadsanid kaasi waxa uu ahaa Cabdi Deysane oo isagu markaasi kamid ah xubnihii ku soo baxay xalay doorashadii ka dhacday gobolka Minnesota gaar ahaanna St. Cloud halkaasi oo uu rabo in uu ku biiro baarlamaanka gobolkaasi Minnesota Cabdi waxa uu hore ugu tartamay kursigan balse haatan ayaa markii ugu horeysay uu soo gaaray in xisbigu ay magacaabaan oo ay u doortaan asaga inuu ku matalo jagadaasi oo uu u tartamo halka sidoo kaleetana codbixiyaashii dhinaca kaleeto xisbiga dimuqraadiga ay asagu sidoo kaleeto codadka siiyeen wuxuuna wajihi doonaa doorasho uu la geli doono xubin ka socota isla kursigaasina u tartamaysa xisbiga Republikaanka November markii la gaaro inta ka horeysa wareysigan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa nabadgelyo